hargeysa la burburiyey oo diyaarada garaaceen oo madaafiic lagu garaacay meena ka dagaalamay burco ayaa lagu dooday sideen ugu quuri karnaa dadka kala reer Soomaaliland maxaa ku dhahay madaafiic inay magaalo 200 oo kun oo qof ay degan yihiin inaynu ku garaacno waa maxay dhaqanka caynkaas reer wadaniyow ma qabiil baan wax ku dhisayna mise qaran baan dhisayna waxaad adigu naftaada u diiday oo aad ka soo dagaalantay sidaad ugu quuri kartaa nin walaalkaaga sagaal bilood baa la lahaa kada ما ها حسب وطني وقرى ما ها علمادي باع مشتركي قف الله قف كستو عقل له أو سومالي لاندرة ما حادر عالم كي أدون كوردن توبك سيلاي مركوريتشي سومالي لاند سيدا يهيد ما متبايا هيد إلى الأسخور إلى الله يعدو ما متبايا هيد إلى الشحضة إلى قرو ودوشيسة قنبرينتا لنافيب قرو ودوشيسة وحال لقوسي سعودي يوعظة ماذا سومالي لاندي مدة هيد اعتراف كدوسو الباب كوية لماذا ومدة هذا ودمي سيستي ماذا هلا ويديو هذا موسى مدحوينه ولقي ما نعرك مركا هدوم بحشي الله انبضي وموسى ده الله انبضي ده لسي شوقي بينه موقتي مدحوينه يروحي قاعد لا عمرك يسار احمد محمد محمود سيلايو هل كوكا تجي موسى ويديو حاجات ما انت سومالي لاند مرت لكن عاد ما وحنو قانا تبيش الجوش هالك وصعد ورطة مكرنا صار قاهر يا المركو كنت جاي مدحويني سيلاي دردار موسى وحوي ضل يضد ماذا يسمى كاجتي أريد أسنو البوه هستا سيلاي أنا موسى وكيري ضل يضد ماذا يسن أيان كاجتي موسى هضوي حكورنا يا عبد الرحمن ما ندو كوريجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله marka ugu horeysa dhamaantiin reer Luxembourg ay ugu horeeyaan hablaha sharafta leh halkan jooga guddiga qabanqaabada dhalinyarada xubnaha ka yimid dalalka kale qaarkoodna aan wada soconay guddoomiyayaasha iyo qaar dalal kaleba ka yimi oo Yurub ah dhamaantiin marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi alxamdulilah ilaahay baa mahadda ugu weyn leh isaga ayaanu mahadnaqaynaa maanta sagaalaad bay ahayd group badan oo inala joogaa waxaan malaynayaa way afurayeen nimanka waa afur bay ku joogaan waa maalin khayr ah ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaantiin inuu khayrka maalintaa carafo uu ina siiyo dhammaanteen qof walbana wuxuu niyadda ku hayo uu maxaan ku dhahdaay uu ilaahay si deg dega u siiyo hadday mid shaksi tahay iyo hadday mid family tahay iyo hadday mid qaran tahay dhammaanteen waxaynu niyadda ku hayno waxaan u mahadnaqayaa Muna Maxamed xaaji qurumbe oo iyo hablihii la joogay oo maanta qada aad macaan marka aanu nimo fahantala qada aad macaan oo aan saaxiibadii hoos baan ku yiri oo niyo iska yar joognaa caawiye ma fahanti ya haddii hawlahan maartay meesha ay ka jiraan Luxembourg ma yar sugnaawaan oo baska ma nagaana caaw marka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waqtigaas ay runtii geliyeen maxaan ku dhahdaay soo dhaweynteeda waxaan kaloo mahadnaqayaa hablaha kale meelaha fog ka yimi ay saaradda waara ka mid tahay France hinda iyo hablaha kale quruxda badan hinda maxaa ducaalan sheegaya iyo hablaha kale quruxda badan ee halkan jooga oo reer Luxembourg aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waxaan kaloo mahadnaqayaa guddida qabanqaabada xafladan isku soo dubaritay
وأن كسو قاضي عبد الفتاح يوسف يتيم كي شقيني يقدومي عبد الغني أحمد أنت بعد يا أدبان ومهندقيا وتلي رقب يا لدي يلا شيء عبد الفتاح هو رير بلديجو ما فهمتي مركان واحد حسوستين بدنا بلديك تجيو meel aad u qurux badan markay roobku doo runtii soo dhaweyn wanaagsan leh markaas aad ayaan idinka mahadnaqaya Luxembourg waxaana keenay reer Luxembourg baan nala soo hadlay iyagoo isku duuban ayay nala soo hadleen oo ay yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaanu laan xisbiga wadaniga aanu ka abuurno Luxembourg dad aad u badan baanu kala hadalay aniga iyo xogay maxamed carab dhowr jeer waxa lagu celiyay yani waa magaalada dalka ugu yar definitely Europe iyo dalal badan oo kale adduunka dalalka ugu yar bay maxaan ku dhahdaa ay ka mid tahay waxaan u soconaa ma aha dal iyo dalkaasi wuu weyn yahay oo uu ballaaran yahay iyo hawsheedu ma aha haddaan wadan nahay waxaan u soconaa dad reer Somaliland oo doonaya oo ku qanacsan inay xisbiga wadani qayb ka noqdaan inay isbedelka wadani qayb ka noqdaan inay rajada shacabka jamhuuriyadda Somaliland ee ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay saaratay xisbiga wadani inay qayb ka noqdaan ayaanu u soconaa waxaanu ka aragnaana waxa weeye dadka reer Luxembourg tirana maaha hadday Ingiriis joogaan iyo hadday Germany joogaan iyo hadday meel kale joogaan waxaan idin sheegayaa iyo hadduu Mareykan joogay iyo hadduu meel alle meesho sirta noloshu waxa weeye waa tayada ما مغلى سنة سرت نولشو واتيدا كنن وحكودا أما تمني نو معنى له أما توقف دوله معنى له هذا ما يفهم إنسان وري هذا إما كان هؤلاء أنت بدن هبلها أبى ما فهمتي وري راجي وغيره رد مركان هو هذا الله هولو ويكون أكسين مقرن صاحب الله والله صورنا في بري مقرن سجلي يا ما فهمت يا مركا بري وروح اللورين شنو تقانا نينك successful كي وعوية نينك قبل الدبتة أنتاي إما كلمة ده أصلا ما استمع على مقرات بري هو الاستعمار كده هذا الله نوع عاسة إما كوعوية نينك successful كي وعوية ninkay gabadhi barbar taagan tahay ma garanaysaa hadda ya ninkay gabadhi barbar taagan tahay un baa adduunka successful noqda marka xaaladdu waa tayo ismaan lahayn maanta wax badan ka dhee qolyahaanu saaxiibka ahayn oo kulmiye ma fahamtay waxaan islahaa xalay baan intaan ka odhanayay aan ka idho waxaan islaamaanta niyo ma taqaanaa waa maalin khayraad iyay bal ajarka kaa qaadanin ma garanaysaa ajarka sagaalaadu carafaa lagu jiraaye laakiin waxaan ma leeyahay haddii habeen la galay malaa xooga yar way furan tahay soo maha maxaad ila tahay ya maxaad ila tahay kowdha ha marka qolo badan oo reer wadani maaragtay Mareykan baan tegayo soo maray Mareykan iyo Canada iyo Europe iyo meelo badan inta badan ma waayo mid wadani oo yidhaaha habar ku dhici baa meesha joogay ma garatay gabadh baa igu tiri anigoo Seattle joogay Allah marka TV-ga soo gasho yaa jibiyaan u jiray bay tiri
ما قرنسا او ما هذا ما فهمت وبريان ده كل مية وين هذه ما قرأت أنا ده ما هي مكتر قاربا يلا متقنا حضان هالك حسب جوان والله أنا وسانو مير قبي وأنا عقلي يقول شقيني بريان كل مية عقلي إنه كيني مايو قاربا واسطة إنا يعني ما مثل فهمنه سومالي لا قرن بينو دسنيني قرن كومد جمهورية السومالي لا أمبر دسنيسي ما قبيل بينو حكون دسنين هورتا ورورد أنا شفاني غير وطنيو ما قبيل بينو حكون دسنين مس قرن بينو دسني قرن كنيكي كبينو بينو كسر ورجع دسنين هاي ده حسابته وحنو سمين السنة إلى الوضع قلم يعني هاي دورتا ما أنا عايق هاي ها أنا مثل فهمه مركا نينك ولا عمي واحد ما فهمت شالين وين سوق الهرجيد نو لبا حسبي وين هاينو ما انتنا صاحبتي وين سوق الهرجيد نايو waxba iskuma haynee waxaan isku haynaa hoggaanka dalka iyo talada dalka sidan iyo sidan u wanaagsan qoliyaha wareeyaasha saaxiibka sakriyeeyo iyo wareeyaasha warfaafintan waanigi joogay markay wareysanayaan waxay dhahaan waxaad keentaa waxaad ka mid tahay wasiir waxaad ka mid tahay raggii Muuse keene ma fahant iyagoo mala u haystay inaan dee aan oranay ma adeeraan dadar Muuse keene waayo Muuse mujaahid buu haynaanu keen horta saxabeed wararta bay maqlaysaa iyana waxba isku diidinay laakiin cali gurey baa noo hadlayo mujaahid kale ma fahant dee wuxuu yidhahdeen Muuse oo madaxweynaha weligay ma naan arag marka hadduu baashi la ambaday oo Muuse de ula ambaday de la sii joogi mayno moogti markii hore waxaan u dhisnay inuu Somaliland midaysan oo walaalaysan oo taye iyo talaba halkii madaxweynahaygii ruuxiga ahaa ee ilaahay cimrigiisa raajay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo halkuu kaga tegay Muuse weydiiyo xagaad maanta Somaliland martay taariyaal markuu ka tegay madaxweynihii Siilaanyo dardaaran buu siiyay wuxuu yiri dal iyo dad midaysan ma kaaga tii arrintaas nin walba way haysataa Siilaanyana Muuse ku yiri dal iyo dad midaysan ayaan kaaga tii Muuse haddaba muxuu ku oranayaa Cabdiraxmaan maalintuu ku wareejiyo ila uu ku wareejinayaa way noognahay hadda ma fahmaysaa عالم الغيب منهن وإلهي ينبا وحصوصا لكن آد ما وحنو أقانا تبيش الجوش هالك يوصعوا تورطة مقرنة صار ها إذوكو 17 كيمي ذا قرنين لكن أنا قوي نوب موقتي هذا ما يمغنى صار سيدا وحا يقول موقتها أنا عادي هين وحوي waxaan doonayaa reer Luxembourg meelo kale oo fara badan waxaan ka yiri kursigan madaxweynaha ama mid prime minister ha noqdo ama mid madaxweynaha ha noqdo mid walba hada laguma gaadhati raggiina maanta aanu halkan wanqashan uga sameynayno ee wadani ku soo biiray iyo hablaha waxaan idin sheegayaa hada laguma madaxweynenimada laguma gaadho reer wadani oo dhanna waxaan u sheegayaa meel kasta ay adduunyada joogaan inaan hada lagu gaadhin haddaad doonayso kursiga inaad hadasho waa inaad hurtaa wax dhaba waa maxay waxa dhabaad horeysaa waxa ugu horeeya waa waqtigaaga horta waqtigu way nagu wada ciriiri 8 saacadood baa wada shaqeyn qaarkiina waxba laga yaabaa inay overtime ku daraan shaqeeyaan ragga inta badan imanka haaska iyo caruurtaba kama badiyaan in badani hadda ma garat dadna wuxuu soo haystay inuu adduunka xoreeyay wada ma fahanteen waa intii nolosha iska caadiga ah ma garat hadda meel walba la joogay
ninka raga ee doonaya kursigan inuu hanto ama nin saara waxaa la doonayaa inuu xaaskii carruurta soo dhaafo oo waqtigiisa uu huro oo albaabada garaaco oo calamada iibiyo oo jeebkiisa iyo gacantiisa isbaro laakiin 20 doolarna bixin maayo campaignka maxaan ku dhahdaa doorashadana ka qayb gali maayo oo marka la yiraahdo 100 doolar keen ama 1 doolar keen baad moodaysaa inaad wadnaha lagu dhuftay ama aabihii loo soo sheegay lama is qaadanaya maaha isqabadsiiya waxaan idin sheegayaa qolyahan reer wadani waxaan u sheegaa inta badan reer kulmiye markaanu siilaanyo dhisaynay iyo markaanu muuse dhisaynayba lacagtu ishiyu maahe dad baa jeegooda dhigayay jeegooda hablo miyaad aragtay shaqo caadiya iska haysta ama dhalinyaro shaqo caadiya iska haysta ayaa joogooda sidiisii dhigayay hadda ma garatay wuxuu yidhi ninkii magacaayo markaasuu yidhi logo lagu mina fadhiyey buu yidhi ama dahab dhiga ama lacag dhiga 4 bilood baa idiin hadhay ama 5 bilood baa idiin hadhay haddaad reer wadani tihiin waxaanu kursigan u doonaynaa maaha kursigan baanu iska rabnaa cabdiraxmaan iyo maxamed cali madaxweynaha mustaqbalka iyo madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka iyo guddoomiyaha xisbiga iyo inta kale la shaqaysaa iskama rabaan inay kursi jeegaan waxay u taagan yihiin maanta waxa weeye badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland toddobadii sannadood ee uu muuse hayay ayaan doonayaa qof walba inaad dib u jaleecdo milicso tubeeg silaanya markuu wareejiyey Somaliland siday ahayd ma mid bay ahayd ilaa laasqoray ilaa law yacdo ma mid bay ahayd ilaa shaxda ilaa garoowa dushiisa gambareynta la dhaafay garoowa dushiisa waxaa lagu sii socday yoocada diiwaangelinta waxaanu gaadhsiinay shaxda oo garow qarna ka hooseysa meel walba Somaliland waa laga footeynay waxa la wixii waxaanu soo dhameynay heshiisaha ilaahay naxariistii jannaasiye cali khaliif galeed waxaa ka mid ahaa wasiiradii ugu tagay maxaan ku dhahdaa Addis Ababa markii la geliyay waxaa ka mid ahaa wasiiradii Awrbogays heshiiska kula galay dhulbahantay intiisa badan Naalaye Axmed kaski qabe iyo Injiile waxaana raggii ka qayb galay heshiiskii Caynaba iyo heshiiskii Arhadeey ummad dhan oo reer Somaliland oo ehel iyo dhiig iyo wax walba la wadaago ayaa hadunu muuse saxiixood Axmed maxamed Silaayo soo dhaweeyay markiiba waxaanu aragnay inuu khaldan yihiin dasbiinku ku daray wixii oo dhan musabix 7 sanadood dib u eeg meeday Somaliland mid ahayd اعترافك دوسو البابك ويا ميدا ومدى هذا ودمي سيستي ماذا هلا ويديو ما انت وحو كدوضا قرن بان دفاعية قرن بان دفاعية ابو كدوضا هذا بمغلسة تو كفرن دوت بكفرن أنا ودي مش يجي هدي عقليين العايو أما عقليين العايو أنا مش يجي ده هدوي نار كده إن لا وأنا وحبا أركي كرين يا لجوجا إذا ما تجمهورية الصومال يا أمر كذا بحي يا وحي يقول أنا قاطع وحي يقول درانا قاطع حسب معارض وده بدي تشوجا والله جوا هذا أيوه موسى عايشة على وحوي حقاد نكتي سومالي لان سومالي لان تيم ذا سند ماضي ما هي جنرال دي ما هي كورنيل دي ما هي رجي جيسياشة هاي قرن كانوا صوتك على ما هي ولا موسى ميوتجي عيدا ما دي سداد بلود سجال بلود بنو كبر ينام لاين مدفع كده الله سعنود وددري سومالي لاني مدفع صا سداد نقولنا مدفع dadkeena miyaynaan ka dagaalamin dadahan
hargeysa la burburiyey oo diyaarada garaaceen oo madaafiic lagu garaacay meena ka dagaalamin burco ayaa lagu doodiyay sideen ugu quuri karnaa dadka kala reer Soomaaliland maxaa ku dhahay madaafiic inay magaalo 200 oo kun oo qof ay degan yihiin inaynu ku garaacno waa maxay dhaqanka caynkaas ha waxaad adigu naftaada diiday waxaad adigu naftaada u diiday oo aad ka soo dagaalantay sidaad ugu quuri kartaa nin walaalkaaga 9 bilood baa la lahaa kada ma aha xisbiga wadani oo qura ma aha culumadii baaci mushtarkii qof alla qof kasto caqli leh oo Somaliland ah maxaa dheer caalamkii adduunka oo dhan kada ciidamadaada ka soo saar dadku way isqabtaan oo waa la heshiin karaa maxay gaadhay sida ciidamadu ku soo baxeen baa su'aalu ka yaalaan weliba iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya inay soo hortaagay yiri waxaas dhacay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland miyaanay dad ahayn miyaanay aayahoodii mustaqbalkooda ka talinayn sidee caqligooda iyo ummadooda loo caay maxaa ku maskaxdooda loo caay karaa waa inay dhimaand gareeyaan ay ka doonaan musabixi iyo intii amarka bixisay ummad wixii ku dhacay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa in aan la aqbalin cid aan amar bixin oo aan shuqul ku lahayn inuu ku eedeeyo hawluhu isagu galay oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu sharxo miyaad aragteen weli isagoo ka hadlaya oo leh dhowrka boqol ee ciidan la qabtay darajada generaaladu ku jiraan ee halyeeyadu ku jiraan weli isagoo leh la soo daayo ama ka howlgalay miyaa aragtay illa isweydiin miyaan ahayn waa maxay sababta loo adduunyada waad aragteen meel walba qof baa la qabtaa dal laga qabtaa miyaad aragteen madaxweyne fadhiista miyaad aragteen dawlad fadhiisata dhowr boqol iska daayo mid qofka marka laga qabto miyaa aragteen siduu damiirkiisu siin karaa inuu soo hortaagi intuu isu keen soo hortaago oo ummadda uga sheekeyn karaa isagoo noo sheegin wixii dhacay isagoo noo sheegin siduu soo dayn lahaa oo cid kale ugu wadeeyaa laga aqbalaa shacabka loogu tumaa soo garan maysid waa la xisaabtamaa oo runta laga wada hadlaa miyaad aragteen carruurtoodii iyo xaasaskoodii isagoo ka hadlaya war hadda may maqlaysaa because aayahoodii maxay samaysaa maxay wiibi weyde nolol ayay samaynaysaa carruurteeda ay maxaan ku rahdaa ay ku daayactirto ayay samaynaysaa ha waxallo wixii aad ku familygaaga ku hayn karto sharaf iyo magac iyo qiimaan u hayaa hooyooyinka caynkaas ee la dadaalaya carruurtoodii iyo aayahooda iyo mustaqbalkooda markaasuu ku odhanaya difaac qaran baan ku jiraa yaad u sheekeynaysaa hello yaad u sheekeynaysaa difaac ma noocana hadduu difaacu caynkaa yahay macnaheedu waxa weeye waa inaan la dooran waayo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland wuu jibinaya wuu burburinaya hadduu noocaa yahay difaacu waxaad eegtaan ummaddii walaala ahayd uu kala qaybiyey ingiriisku waan maqli jiray divide and rule ma fahanti dadka qaybiyo haddana xukun ma garatay 60 sanadood baa laga soo wareegay ama ka badan ba ayaa ka soo wareegay waqtiyada caynkaas soo garan maysid dadkii walaalaha baa la doonayaa la yidhaaho kana waa cadow gudaha war ma fahanti kana waa cadow gudaha kana waa yani daa war ma se wax u dhaceen waxaan kuu sheegayaa oo hubaala oo dhab ah inaanay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland si ay eegan kareen nin kala qaybinaya oo cunfi iyo qabaayil ku kala wada
dhaqaaliimee dalalka bari gobollada bariga haddaad eegto ilaa noloshu way isku xidhnayde yaa baa ku dilaya maanta nolosha ka taagan galbeedkuna waxa ma dhaamo xalana waan idhi iminkana waan idhi siilaanya dabadii dabba lama shidan ha soo garan maysa markaa waxaynu u soconnaa isbeddel dhamaynu u soconnaa isbeddel xisbiga waddani wuxuu diyaar yahay inuu ummadda jamhuuriyadda somaliland walaaleeyo oo mideeyo oo aan la kala qoqobin oo aan loo bahalagaleen la isaga dhigin oo aan la odhan kanaa kan ka duwan waxaynu u soconnaa xisbiga waddani u socdaa cadaalad iyo sinaan hadday xilal tahay hadday dhaqaalo tahay hadday maxaan ku dhahdaayey wax kasta tahay mashaariic inay ummadda jamhuuriyadda somaliland u sinaato waxaynu u soconnaa doorasho xor ah oo xalaala oo dhacda reer waddaniyo waa layna boobayaa iyo waxaan cidinadii boobi mayso wax cid ku boobi kartaa ma jirto commission qaran oo dhaansan baa jira hablaheedii iyo raggeedii ilaalinayay foodkaasi inuu si xor oo xalaal u dhaco ayaa loo sameeyey dalka yaan laydinka dhaadhicin cid baa idin boobisay mise laydin boobi karaa cidina isma boobi karto commissionka waynu ku kalsoonnahay way dhaarsan yihiin dadkii ka howlgelayeyna waa diyaar tababar bay qabaan way shaqayqaynayaan dad la hubo oo howlgelaya ayuu xisbiga waddani maxaan ku dhahda keenaya waxaanu rabnaa inaynu dhaqaalaha kobcino horu marino qarankan jamhuuriyadda somaliland oo dalku aanu kala sarrayn gobol walba iyo degmo walba aynu ku salayno dalka jamhuuriyadda somaliland aan la odhan gobolkana sidan ee gaara ha loo sameeye aynu ku salayno baahiya qaranku muxuu yahay xaggoo gobolkan maxaa ka dhiman maxaa degmadan ka dhiman maxaa tuuladan ka dhiman baahiyaha asaasiga oo dhan aynu ku salayno oo aan qof jeclaysi iyo qabiil aan ahayn ee ah baayo halkeebaa m c h u baahan iyo dhakhtar iyo halkeebaa biyo u baahan halkeebaa waddooyin u baahan markaa waxa weeye xisbiga waddani wuxuu u taagan yahay ee aada soo codsateen inaad ku soo biirtaan annaguna aanu ku faraxsannahay inaanu halkaa idinka nimi idinkuna soo dhoweyno qalbi furan iyo maskax furan iyo gacmo furan inaad ka soo qayb gastaan xisbiga waddani oo qaranka jamhuuriyadda somaliland badbaadadooda ay tabi mayno saaxiibkay maxamed kahan wuxuu doona ha yidhaaho ama uu ha yidhaaho ma fahanti ama ha yidhaaho group baa reer soomaaliya iyo waxaynkaasa maxamed sidan mu ahaan jirin may fahanti horta xujaaju wallaahi wabilaahi way iga dhawata ma garatay wacdan inaanu san ahaan jirin sharaf baynu u haynaa waa ninkii afraad ee snm galaha magaceeda iyo sharafteeda waynu siinayna warman baa la laakiin adeer waxaan leenahay wakti tegey ceeb laguma sagootiyo ha intaa u dhaafi maayo hadallada naxliga ah ee maalin walba wallahi kamaan filayn had iyo habeen taagan waayo waxaanu nahay raggii role modelka uu ahaa markaanu yaryareen role model baanu ayuu noo ahaa nin dhalinyaraa oo ka dhiidhiya dulmi iyo dadnimo ilaahay waxaan ka baryayaa wax helaba inuu sidiisi ka soo dhigo hore uu ku soo celiyo waan u ducaynaynaa ma garat waktigii muusena waa gabaabsi muuse kama aha xumaan waxanu
intaasay ka tahay ha waxba kuma kordhin karo talo ma qaadan karo talo ma qaadan karo lagala quusay ma garatay sameeyaan maqaleen islaantii TB du ku dhacday burco iyadoo ku jirta dhakhtarkii laynkii lagu jiro ay marba qufacdaa ma fahamtay midaan garanayn ayaa marba wuxuu yidhaha deedna hooyo shifo unbuu yidhahaa mid kalena wuu garanayaa de islaantu show inay TB de croniga qabto deedna kiibuu ka naxay oo islaan kii iyadana way qufacaysaa dee ma joojin karto ganna wuxuu leeyahay shifadaasoo hayaa deedna markii dambe hooyo lagala quusayey waxba kiibuu lagala quusayey waxba ku wareeyay muuse intaasay ka tahay haddaad salaadiin u dirtay yeeli maayo waa kaa maxamuud guuleed oo suldaanka maanta salaadiinta somaliland ragga ugu muxtaramsan ee ugu waaweyn la ku daba tukan maayo jinaasadii aasaska axmed xasan muuse heerkaasuu maraya ninka somaliland oo dhan oo tukanaysa qadarin waayey meydka ixtiraam iyo ummadda halkaa joogta waxaa kale la weydiinaya garan maayo marka waa halkii indhe yaasiin buu kii yidhi intuu garanayay bay dhaaftay ha 7 sannadood mar somaliland waa inaanay ugu darin 1 minute waxaan kaga baxayaa mar labaad iyo kun jeer waxaan ilaaway salaantii musharaxa iyo salaantii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxamed cali iyo guddoomiye xirsi ay yidhaahdeen laantaa cusub ee maxaan ku dhahdaa naga gaadhsiiye luxembourg iyo sida ay idiin soo dhaweynayaan guddi degdega samaysta hablaha u roonaada xilalka iyaga aada u shaqeeya waxaan idinkaga tegayaa maxamed carab buu habaan malaynayaa xogeeyaa ninkii yidhi waa dihantiin soo maaha macnaheedu waxa wey waxa la yidhi lacag badanna waa qaadataan reer luxembourg ma garatay dalku ha yaraadee baashina waa haysaanoo meelahan kale waa la xoogay muddaa la jafjafayey wax laga qaadaba dee idinku mar wada dega 4 bilood baa idii hadhaye yaa 4 bilood dee isa soo raaciya wixii ku baaqday oo dhan ha ila xisbiga dad un baa waday intaase oo qaar baan aqaanaa marka lasoo waco la yidhaaho war maxaad bixinaysaa maalintaasa taleefonka kugu dhamaysa ma fahanti isla soo doonta guddida lacagta u keeno waxaad tidhahaan war waxaanaanu kari karnaa $1,000 5,000 ninkii mee taajirka halkan lagu sheegayey farxaan mee ya de maxaad su qarinaysaa isla gaabinaysaa maasha war maasha dhegeyso waad yeeshaa farxaano soo daadi adeer maasha u bilow waxaad tidhahaa 10,000 aniga waa iga kambeynka lagu galo ha ma garat ya ha baasha sii daadee kowdhe marka waxaa yeelaysaan cabdifataax wadda waad maqleed markaan bilidhigiya ka sheekeynayey ya de aad iyo aadna waan kaaga mahadnaqayaa marka maxamedna de kumaan fogaani ma fahamta hadda baashu waa qac waa la iska siiyaayo marka ina taasuna aad soo garanayso marka waxaanu idinkaga tegaynaa reer luxembourg sidaan sheegay haddii daa casuumadahanu jiraanna waanu iska soo noqnoqon doonaa haddii ilaahay nafta noo daayo soo maydaan garan laakiin waxaanu idinkaga tegaynaa duco inaad dalkan aad joogtaan
horta ilaahayda ku asturo ilaahayda inuu ku badbaadiyo ha waa dalqa qurbaynu joognaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa waa maalin khayr qaba inuu ilaahayda ku badbaadiyo idinka iyo caruurtiinaba dadkiina halkan jooga oo aad maxaan ku dhahdaa isku tiirsanaataan qabiilku waxaanba taro waxa wax taraa waxa weeye waa saaxiibtinimada iyo wada noolaashaha iyo wada jirka kaasaynu ka doonaynaa somaliland kaasaanu doonaynaa inaanu halkan ugu sameeyo waxba yaan laydin sheegin haddii laydku yidhaa cirha buurta geliyey maanaan geline geed gaaban iyo geed dheerba cirha wuxuu ugu tala u fuulay siduu nimankaa uga soo dejin lahaa buurta anaa idin sheegay waa been waxa weeye heer bay gaadheen markay arkeen ummaddii jamhuuriyadda somaliland oo dhan ka sii jeesanaysa ay arkeen ayaa imika waxay noqotay inay ul faraarale intay qaataan wax wasakhay saa ula dhacaanoo deedna wuxuuna yidhahdeen ha gaadho in cere iyo ma garatay xirsi iyo gruubkiisa la shaqeeya soo maad garan xaashaa lilah waxba muugeyn waa ka geed gaaban iyo geed dheer wuxuu koray siduu maxaan ku dhahdaa buurta uga soo dejin lahaa qorshuuna waxa weeye inay ummadda somaliland mid ahaato walaalo ku noolaato cidda quree samayn kartaana cidda quree sool ka howlgeli kartaa cidda quree karaamada iyo kalsoonida ummadda jamhuuriyadda somaliland kuli waa cabdiraxmaan ma aha maxaan ku dhahdaa muuse biixi muuse wuxuu lahaa wuu cunay ha waqtigiisii wuu dhammaaday waqtigiisii wuu cunay intuu dalkan usoo halgamay ayaynu ku ixtiraamaynaa una sheegaynaa inuu waqtigiisii dhammaadee si sharaf leh sidii loogu wareejiyey inuu xilkaa ugu wareejiyo madaxweynaha mustaqbalka ee soo socda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxamed cali laakiin for granted u qaadan mayno waxaan doonayaa inaad reer wadani oo fahantaan wax for granted la yidhaaha ma jiro waxaad gashataan xisbiga wadani ilaa intaad gelisaan unbuu soconaya haddaan hore laydinku sheegin ee laydinku yidhi dhaartiiba u hadhsan sheekadiinii la kaale ee sabatiinkii aad iska sii dabaaldegayseen ma fahanta war waxaasu ma jiraan adduunyadan ha ku talagal inaad dawlad doonaysa si kasta inay kursigan kusii joogto aad iska soo horjeedaan aad la tartamaysaan rag iyo dumar ku talagala waa geedaad beeratay oo kale beeraad beeratay oo kale wax tacabkaad gelisuun baad helaysaa hadhowba ha odhanina imakaba waan idiin sheegaya reer luxembourg oo qura la hadli maayo adduunyada oo dhan baan la hadlaya maxaan ku dhahdaa xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga wadani waxa aad gelisuun baad la soo baxaysa hadhowba sidanaa la yeelayo hebel baa nonsense war waxaan waa laga gudbiyey waa you move on geli xoogaaga iyo waqtigaaga iyo xoolahaaga taasaa adduunyada lagu gaadhaa karasto taasaa maxaan ku dhahdaa lagu hantaa hadalkii saaxiibkay baan raacayaa maxamed carab wacayse maadaama guri dambeeskii tihiin annaguna waanu idin ilaalinaynaa idinkuna dee jacaylkii ilmaha yar uu la-aan jira ma garatay dee la kaale oo ma faate hade ilan haddii aad noola dhaqaton sidii raggii waaweynaa lafaa cunayay oo kale annaguna aanu leenahay waa waxaad ku soo beeratay meel yaroo janno oo luxembourg la yidhaaho waad farxaan oo gelinba wada shaabka gacanta damee suurto gelaysaa war aad iyo aad baan idin salaamayaa hablo iyo rag iyo dhalinyaraba raggiina halkan jooga reer luxembourg sharaf iyo maamuusna waanu haynaa ilaahay hayda asturo ilaahayna hayda barakeeyo aad iyo aadna waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku darayaa un yurub waxaa noo jooga tiim adag oo aad iyo aad u qiimo badan waxaa halkan maraya xogayihii ku-xigeenkii arrimaha dibadda mustafa cabdiraxmaan muumin maxamed carab wacays xogayaha yurub waa ruuxiga iyaga waa raggii waa nin runtii aad iyo aad iyo aad miisaan iyo qiimo u leh waxa weeye axmed qaasim axmed xaaji oo guddoomiyaha beljama
ياسين ولي قدومياش الروحي جيسان أنا أقول ما قرأت سو قرن ميس أو قدوميها يسوينا يا عبد الفتاح إلهي بركة عبد الفتاح عثمان أو رنتي chairman intuu yimi hawl aad iyo aad iyo aad maxaan ku dhahdaa u qurux badan ka qabtay hawshaanu ka filaynaani Germany because isaga iyo ragga kale iyo hablaha la jooga ay rajadayadu iyo qalbigayagu u buuxoyn wax weyn ka ay ka qaadan doonaan campaign-ka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa Abdi Fatah Sikriye iyo Horyaal TV oo runtii anigu qoliyaha wareeyaasha saaxiib baan noo wadan warfaafinta joogay dad sharaf leh wareeyaasha oo waqtiga ay ku shaqeeyaan iyo waxa ay qaataan oo aan fasax lahayn jimca male oo ciid male oo 18 May male waxa oo waxa shaqaalaha kale oo dhimay ay qaataan wareeyaasha wallahi inaan ilaahayni billah way mar walba de event baa dhacay waxba taagan idinku markaa fasaxtiina campaign aad maxaan ku raadayay qaadanaysaan iyagu wareeyaasha Somaliland ama jimcaha noqdo ama baalki ku jira waxay ku jiraan halkii wadad aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ilaahay xafida meel ay joogaan intii aan Somaliland joogay yani wasaaradda warfaafintu wax badan bay ka bedeshay nolosheeda yani dadkaas say u shaqeynayaan iyo waxa ay helayaan ayaan islahayn